waxaan marka hore halkan ka salaamayaa wasiirka wasaaradda warshadaha mudane Shacayb Maxamed Muuse afhayeenka madaxtooyada Xuseen Injineer Xuseen Aadan Cigadeyn agaasimaha guud madaxtooyada Marwa Khadra Xaaji Ismaaciil Yoonis Khadra Xaaji Geey maxaan ku dhahaa maayarka caasimada Hargeysa maayarka maayarada Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiin Sooseefo waxaan salaamayaa qodobtaas gobolka madaxda xisbiga xogeyaha guud ee xisbiga kulmiye waxaan salaamayaa gudoomiyaha haweenka qaranka naaw waxaan salaamayaa inta cuqaasha cimaamadaha xidhan dhalinyarada haweenka leeyahay ujeedo iyo hadafka isugu yimid kan maanta aynu fadhino waa mid aynu kusoo dhaweynayno ambaasadoorka cusub ee laynoo magacaabay ambaasadoor Sakariya Xasan Wacays waxaan leenahay marka hore ambaasadoor soo dhawow gobolkaagii oo aad horada u iman jirtay waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo niyadsan iyo qalbi saafi ah soo dhawow baan ku leenahay ambaasadoor marka intaas oo dhaweynta kaga imaan waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha qaranka Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo magacaabista oo magacaabay ambaasadoorka runtii xilku waa laba nooc midna waa mid loo igmado qof aan aqoon u lahayno dee waqtiga iyo nasiibku siiyo midna waa xil la siiyo intii ku habboonay ama aqoonteeda lahayd waxaan odhan karaa xilkan maanta Sakariye magacaabistu baa la magacaabay laakiin xil loo walba hayay oo uu qaranka u hayay ayuubaa yacni loo magacaabay maanta waa shaqadiisii waxaan aaminsanahay inuu wax badan ka tari doono اعتراف Soomaaliya wax badan oo inoogu soo kordhin doono insha Allah taala waxaan leenahay ambaasadoor ilaahay aan ku garabgalo ha kugu guuleeyo guusha maxay ka gaadhay aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa waxaan jecelahay intaan ka bixin inkastoo uu fara badan yahay oo aanan helin chance labaad ku soo noqdo in aan guddoonsiiyo awaan ama shahaado sharaf ah ugu talagalay ambaasadoorka oo aan ku maamuusayo hantidiisii iyo waayo-aragnimadiisii hore ee uu qaranka u soo qabtay iyo magacaabista cusub ee hadda loo magacaabay labadaba koonfinaysa waxaan jecelahay inaan guddoonsiiyo insha allahu tacaala shahaadadaas waxay koobsanaysaa runtii maaha uta ambaasadoornimada sida ku xusan oo ambaasadoorka uga xusan doona ilaa hawlihii hore qaranka u soo hayay aniga shaksiyan u gartay waxa weeyaan waa mid wax ka badan u istaahilaan laakiin insha allah waxaa ka badan u heli doona ambaasadoorka وين